بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا مطبخ منى. ما أنت waxaan samayn doonaa buskudkan aadka u macaan oo la yiraahdo Nilla wafers. waxyaabo badan baa buskudkan lagu samayn karaa, dessert badan baa laga samayn karaa. waa buskud aad u fudud, ka qaadanayna 10 daqiiqadood. shoolada ku jira waxyaabo badan uma baahno, aadna u macaan yahay, waana fudayd. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inay isku daydeen insha Allah. waatan bismillah. very nice, mashallah. inshallah, let's go. marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa 115 gram oo ah zubda ama butter. waxaan ku daraynaa malgacad vanilla extract. bismillah. malgacadaasaan buuxiyey ayaan ku daraynaa. haddaad jeceshahay vanilyaha waad ku yara badin kartaa. kadibna waan isku shiidaynaa insha Allah. bismillah. waxaan ku daraynaa iminka xabad midh oo beed ah ama ukun saad u taqaanidba. taas kadibna taas ayaan hadana ku shiidaynaa. sonkorta ayaan soo qaadaynaa. in yar baan ku daraynaa sonkorta. markaas xoog hal mar laguma wada darayo, 3 jeer meelahaas ayaan kala qaybinayaa. haafkii ugu horeeyo kaas, haafkii labaad baan ku darayaa, iminkana kii saddexaad, waxaan jeclahay inaan dhinacyada isku yara geegeeyo. kadibna yara shiidaynaa. daqiiqdii iyo milixdii iyo baking powderkii baa noo haray. waxaan ku darayaa malgacad yar haafkeed oo baking powder ah, in yar oo milix ah. iminkana waxaan ku darayaa daqiiqda ama burka. daqiiqda iyo burkana waxaa aad u wanaagsan in maxaa la yidhahdaa shaandheeyo. samaaf Soomaali shaandheeyaha. bismillah. shaandheynaya waad aragtiin. waxaan doonaynaa daqiiq nadiif ah inaan ku waxayno. marka intaas ayaan marka ugu horeysa isku yara walaaqaynaa. kadib inta kale ayaan ku daraynaa. bismillah. daqiiqdii kale ayaan ku daraynaa insha Allah. shaandeynayaa. markasta marka la shaandheeyo daqiiqda baking wuu sii fiicnaanayaa. waxaan ku darayaa in yar malgacad haafkeed oo caana ah. intaas ayaan iminka si fiican iskugu shiidayaa insha Allah. iminka waan isku yara shiishiiday, waan dhex gelgeliyey. marka waxaa la doonayaa daqiiqdu inay noqoto dhegdhegaas aad arkaysiin. very sticky. ma aragtiin? taasaa la doonaya inay noqoto. bismillah. waad aragtiin waa sticky. imika waxaan sameynaynaa, waxaan dhigaynaa insha Allah. ku ridaynaa bakingkii. marka waxaad samayn kartiin laba shay baa samayn kartiin.
inaad sideeda usoo qaadiin ama waxaad ku ridi kartiin ku shubi kartiin bahashan piping bag baa la yiraahdaa piping bag inta ku samaysid oo ku shubtid saa ugu shubaysaa hada doonaysid haddii aad bahashan haysidna piping bag haysidina waa iska dayn kartaa oo malgacad ayaad ku samayn kartaa anigu malgacad baan inagu tusayaa yaryar intaan soo qaado ayaan halkaa ku ridayaa hadhow baan yaro malaasayaa si isku leekadaan marka malgacadaasaan ku wada qiyaasanayaa in yarna waan u dhexaysiinayaa boos say markay u kala baxaan ay iskugu dhegin insha allah halkaasaan wada tixi doonaa kadibna waan tusayaa say noqoto waqti badan ma qaadanayo buskudkan buskud aad u macaan carruurta jecel yihiin waa kan waan wada diyaariyay saad aragtiin bladekiina xoogaa baa igu soo hadhay marka 2 jeer bay noqonaysaa inaan kala shiido ama mashiinka la yara geliyo biyo yar intaan soo qaato aan farteeda saa u taabsiinayaa waxaan saa yara oranayaa say u yara diismaan farteedana ay ugu dhegin waad aragtiin kadibna waxaan gelinayaa shoolada wax badan ma karayo buskudkani 10 minute ama 15 minute ugu badnaan insha allah waan isku soo noqon doonaa insha allah bismillah waa kan waa qaybtii labaad kan aan sameeyay marka imika yara kulay bismillah qaybtii hore aan sameeyay halkan ku sii riday iyagu qaboobay kan baan insha allah xabad kala dhamin doonaa gurigana udgoonka waad ka yaabisiin bismillah had aragtiin very nice bismillah معان اللهم بارك معان very nice way ممكن إن شاء الله اسكت ضياء بارك الله فيكم for watching and إن شاء الله see you next time بسكت معان إن شاء الله اسكت ضياء دمتين wait